markan muuqaalkan waxaa diiradda ku saari doonaa kala goynta jabyada kuwaasoo leh hooseeyo isku mid ah oo maanta waxay noo qornahaysanaa subtracting y oo kala goyn ah iyo fractions maxaa oo jabyo ah marka waa kala jaridda jabyada mise kala goynta maxaa jabyada kuwaasoo leh marka hooseeyo isku mid ah tusaalaha ugu horreeya marka waxay noo qoran waa 6 loo qaybiyo 9 oo laga jarayo 5 loo qaybiyo 9 ugu horreyn waxaa fiirin doonaa hooseeyaha maanta kan hooseeyihiisa waa 9 kan hooseeyihiisa maanta maxaa waa 9 maadaama labadaba ay wataan hooseeyo isku mid ah waxaa samayn doonaa hal hooseeya qaadan doona oo 9 iyo 9 hal haba qaadan doona sareeyaha koowaad maxaa marka 6 ah soo qaadi doona waxa ka jari doona sareeyaha labaad oo 5 marka kadib equal marka waxay la mid tahay ay 6 ka jar 5 maxaa noo imaanaya marka hal way hooseeyana maxaa haysanaa marka 9 way oo jawaabta soo helna kaliya maxaa marka hal loo qeybiyo 9 way halaas oo kaliya hay tusaalaha labaad waxay noo qoran 14 haysanaa oo loo qeybiyo maxaa 15 oo laga jaray maxaa 12 oo loo qeybiyo 15 haysana marka u fiirsan kan hooseeyis maxaa 15 way kana san hooseeyis maxaa 15 way labadu maxaa waxay wataan hooseeyo isku mid ah oo waxa sameyn doona maxaa hal hooseeya qaadan doona 15 hay sareeyaha koowaad waxa haysanaa maanta maxaa 14 way oo laga jaray maxaa 12 marka kadib equal marka waxay la mid tahay 14 hadii laga jaro 12 maxaa noo imaanaya waa 2 hooseeyna maxaa haysanaa marka 15 way oo jawaabta soo helna maxaa marka waa 2 oo loo qeybiyo 15 halaas oo kaliya ay si aan u sii faan kuwan ayagana sameeyeen oo waxay noo qoran 12 oo loo qeybiyo 6 oo laga jaray 4 loo qeybiyo 6 ay markaas oo horeen waxaa fiirin doonaa hooseeyaha maanta hooseeyaha maxaa waa 6 iyo 6 labadaba hooseey maxay wataan isku mid ah wataan oo waxaa sameyn doonaa maxaa hal hooseeyna qaadan oo 6 ah sareeyaha koowaad maxaa haysanaa marka 12 oo waxaa ka jari doonaa 4 hadii 12 ka jarna 4 marka maxaa noo imaanaya waxay la mid tahay maxaa 8 way hooseeyna waxaa haysanaa marka 6 oo jawaabta soo helna maxaa marka waa 8 oo loo qeybiyo 6 hadii aan ku anfaano midana isku dayno waxay noo qoran 13 loo qeybiyo 100 oo laga jaray 3 oo loo qeybiyo 100 way jawaabteeda qaybta commentiga noogu reeb aad waa mahadsantahay thank you